mudaharaad ballaaran ayaa ka dhacay magaalada Gabiley kaasoo laga soo horjeeday xariga wariyihii Hon Cable TV ee gobolka Gabiley oo ciidamada New Police ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka dhex qaateen magaaladaasi Wajaale isla markaasina ilaa haatan ku xidhan caasimadda dawladda deegaanka Itoobiya ee Jigjiga mudaharaadkan oo shacabka reer Gabiley u kala harin isla markaasina madaxa ay ku soo xidheen maryo cascas ayaa ay ku soo mareen jidadka waaweyn iyo barxadaha halbowlaha waa magaaladaasi Gabiley iyagoo sidoo kale xukuumadda ka codsanayay kuna dhawaaqay halku dhigyo ay kaga codsanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu hadlo xariga wariye Mukhtaar Nuux Ibraahim waxaan ka hadlayaa in kala yiraahdo Mukhtaar Nuux Ibraahim oo faamigiisa dhaxay oona wali hadaa dhimasho iyo nolol meel ku sugan yahay jirin madaxweynena wadanka gudihiisa ka taliya madaxweynena wadanka ku leeyahay ayaan ka hadlayaa waxa weeyaan hadaana dalka wax loo qabanin dadka wax looma qabto maanta madaxweynuhu wuu nool yahay wuuna joogaa wadanka gudihiisa afar saddex habeenna waa lagu haystaa dalka Itoobiya waxa weeye waxaan ka hadlanaa sida ugu dhaqsaha badan leh in loo keenay ku hadlayn iyaga oo shirqool loo dhigay oo afartii inamada la kaxaystay la soo celiyay oo og yahay madaxweynuhu arintuna u timid madaxweynaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan jeclaan lahaa inaan baaq u diro madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta dalka mudane madaxweyne waxaan mas'uul ka nahay waa dadka in inta halkoor hore qaar lagu laayo lagu toogto qaarna halkan lagu kala basaaso waa ayaan dareynteeda leeb shalay baan ogeyn in lagu dilay taliyaal qaar la laayay aan dawladdu ka hadal haddana waxay gaadhay in laga hadli waayo wariyaal laga basaasay lagana dhex qaatay dalka dhexdiisa waxa ayaan daraa مسؤوليينتا كأمستي حقوقي وحيان درا مسؤوليينتا دوني ويدي دتكوبي waxaan jecelahay in laga jawaabo baaqan gobolka Gabiley dhamaan dhalinyartooda iyo waayeelkooda iyo suxufiyiintooda bay soo jeedinayaan salaam كعاوسنيو أنا على مرة أروح عن كعصينا مدحوينا أحمد محمد محمود سيرايو مختار نوح إبراهيم صعود مرح بنانها إنه نوصل دايو أنا ولا ليه أو ينا أو يا بنو يتوبيو كحلي هاي وحنوصل بحنا سيرا يا وادنا وحدة قال ما وضنا نبتقول يا نص عنا مركا أحمد محمود سيرايو وحن كعصينا سيدك دقيلو أرماء مختار نوح إبراهيم وقعد له وجواب دقيقة كان لما نحوينها ayaan u baahannahay madaxweyne waxaan nahay dadkaagi madaxweyne waxaan rabnaa si degdeg ah Mukhtaar Nuux Ibraahim inaad arrimihiisa uga hadashid dadweynaha ka soo jeeda gobolka Gabiley waxaan halkan aad iyo aad dhammaan aan ugu ka cabanaynaa dhibaato dadka iyaga lagu hayo oo ay ku hayaan dawladda deegaanka kililka shanaad oo had iyo jeer ama ha noqoto xuduudka dheer ama ha noqoto xuduudka galbeedka ama ka bariga dadkii u dhashay deegaanka Itoobiya ayaa waxay noqotay in تعدي dadkii gudaha Soomaaliland soo jeegay la basaasaya dadkii dibadda Itoobiya joogay la basaasaya imika hadda waxay gaadhay in Wajaale shirqool lagu sameeyo Mukhtaar Nuux Ibraahim oo ah nin qaran oo aan ahayn nin shicib qaranku u shaqeeya waa nin suxufina waa nin qaran wax allaaliyo wax ka hadlay ama wasiir ama barasaab ama maayar ama Hargeysa aan noqoto ama Gabiley aan noqotay ma hayno marka madaxweyne waxaan ka codsanaynaa arrimaha sidan oo kala waa nin qaran waa Somalilandernimadiisii iyo calankiisii soo huwan ninkan Mukhtaar Nuux Ibraahim waxaan ka codsanaynaa madaxweyne inaad si degdeg ah arrimaha uga hadasho ula hawl gasho si kastaba ahaatee mudaharaadkan ayaan ahayn mid soo kordhiyay rabshado fara badan gabagabadiina waxa ciidamada Police ay ku soo afmeereen si nabadgeliya waa Cabdi Cabdilaahi Daahir telefishinka caalamiga ee Somali Channel Gabiley